السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaanta odayaasha nagu xiran meel walba oo adduunka ka joogtaan isku soo noqosho wanaagsan oo qurux badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta idiin waxa uu ku saabsan yahay aktarada caanka ah ee ku canbaxday sameynta muuqaalada gaagaaban ee soo dhigto baraha bulshada sida Instagram-ka iyo TikTok-ka. Ayuuni Qurux ayaa gabi ahaanba waxa ay iska joojisay muuqaaladii ay ku soo bandhigi jirtay barahaasi. Ayuuni Qurux oo ah gabar TikTok-ka iyo Instagram-ka caanka ah isla markaasna sameyn jirtay muuqaalo yaryar kaasi ay ku soo jiidatay dadweyne fara badan. Ayuuni ayaa in badan waxa ay isticmaali jirtay barta Instagram-ka iyadoo dad badan ay ku xirnaan jireen kadibna ay u soo guurtay dhanka iyo TikTok-ka iyadoo sameysay muuqaalo fara badan ay soo dhigtay TikTok-ka, balse haatan ay waxay sameysay muuqaaladii ay soo dhigtay TikTok-ka gabi ahaanba way iska bixisay oo way private gareysay, taasi oo ka dhigan in gabi ahaanba ay joojisay muuqaaladii ay sameyn jirtay TikTok-ka iyo waliba Instagram-ka. Sidaad sawirkan ka arkaysaan waa barta rasmiga ah ee isticmaasho Ayuuni, kaasi oo ka dhigan inaysan yaalin wax muuqaal ah, taasi oo muujinaysa in ay iska dhaaftay muuqaaladii ay sameyn jirtay. Sidoo kale Instagram-keeda ayaa gabi ahaanba waxa ay ka bixisay muuqaaladii ay soo duubi jirtay iyadoo kaliya ay ku reebatay sawirada ay soo dhigtay bartaasi. Sidan hore waxa uu sameeyay aktarka isagana ku canbaxay barta TikTok-ka oo lagu magacaabi jiray Caano Matashi oo asna gabi ahaanba iska dhaafay social media isagoona muuqaaladii hore uu soo geliyay TikTok-ka ka dhigay private ama iska baxshay, taasi oo ka dhigan in gabi ahaanba ay iska dhaafeen barta social media ee TikTok-ka iyo waliba Instagram-ka. Ayuuni Qurux ayaa markii ugu dambeysay waxaa lagu arkayay Ramadaanka iyadoo qaybinaysa cuntooyin loo qaybinayo dadka masaakiinta ah, taasi oo ka dhigan in dadkii ugu horeeyay ee soo bilaabay barahan TikTok-ka iyo Instagram-ka ay marba marka ka dambeyso ay kasii baxayaan social media oo ay ugu dambeysay Ayuuni Qurux. Hore waxaa sidoo sameeyay Caano Matashi iyo sidoo kale Habboon oo iyadana weli muuqaalada aanan qarin balse gabi ahaanba muuqaalo aan soo duubin. Sababaha ayaa la sheegayaa kusoo badashada dadka kale ee ku soo badanaya barahan TikTok-ka iyo waliba Instagram-ka, iyadoo TikTok-ka dhawaanahan ay aad u soo badanayaan dadka ku soo biiraya waliba iyadoona ay muuqato in muuqaalo ka duwan muuqaaladii hore oo ka foolxun la soo dhigayo barta TikTok-ka, taasi oo sababaysa in dadkii hore ay isaga baxaan bartani. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro, like saar muuqaalka si aad u hesho muuqaalada aan soo gelino. aad u mahadsantahay. Next video ayaa inoo balana. Sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillah.